بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada muuqaal aan kaga warrami doono wiil dhalinyaro ah oo Soomaali badan ay ku tilmaameen inuu yahay si xuruule weyn iyo saaxiirkii ugu weynaa Muqdisho oo barnaamij la dhahdo magaciisa Got Talent kusoo bandhigay arrimo indhasarcaada iyo sixir wiilkaasi waxyaalo cajaa'ib ah buu la imanaya oo dadku ay ka yaabeen qoorta ayuu xarig iskaga xirayaa xarigii buu wuxuu leeyahay halkan uu kasoo dhex baxay kaadhadhkan turubtuu soo qaadaya kaadhadhkaas oo intuu indhaha isku qabtuu dhahaya kaa doorata ayaan garanaya cid baa ila shaqeysa dad baa ila shaqeeya waxaan aan wadaa waa magic ama waa sixir ama power iyo awood kale ayaan leeyahay erayada noocaasa uu adeegsanaya wiilkii dad badanna ay ka yaabeen muuqaalka markii aan arkay waxaan go'aansaday inaan bal arrintan daba galo inuu saaxir rasmiya uu yahay oo sixroole uu yahay iyo in uu adeegsanayo trick iyo xeelad iyo farsamo ugu dambeyn waxaan ogaaday in uu isticmaalayo xeelad iyo farsamo oo aanu ahayn wiilku saaxir ama sixroole inta aan anigu ka garan waa xiriga waay xirigan waxa sameeyna khoorta isku xiraa waana kala jiida waxna imgaarayaan xiriga inta ag soo baxayaan igma ciidmay xeeladan qofku oo ka seenin waxa laga yaabaa inuu hal isku galo laakiin aniga waan aqaana wax imgaarayaan haye daawash macna haye laakiin saad u jeedaan mikrofoonkana codkaaga u dhawee laakiin saad u jeedaan haye maajigan waay mar kale ku celi bal waa kana haye waa kana haye haye sidaad u jeedaan iminka sawirkan wiilkii labadiisa gacmood wuxuu ku qabanayaa xadhigii gacanta midig xadhigga dhinaca bidix buu ku qabanayaa ta bidixna gacanta midig buu ku qabanayaa kadibna wuu wareejinayaa oo dhinacaas ayuu ka wareejinayaa sidaad u jeedaan hadduu koonarka kale ka wareejiyo waxa weeyaan xadhiggaas hunguriga ama cunaha ayuu iskaga xidhayaa u fiirso gacantiisu waxay ku hadhaysaa xagga dambe ama qoortiisa xagga dambe ayuu gacanta ku reebayaa markuu ku reebo xadhig yar ama meesha yaradee dalooshay ama laabadkii yaraa ayuu ku qarinayaa u fiirso sawirkan halka yar ee dambaysa sow ma aragtan inay gunudsan tahay meesha yar ee gunudsan waxa ta sababaysa ama keenaysa inuu xadhiggaasi aanu isku xidhmin ee marka la jiido oo uu kala furmo oo markaas aanu waxba yeelin qofkii السلام عليكم waxaan tusayaa iminka xadhigga qaabka uu wiilkaasi u sameeyo oo qoorta isaga xidhayo kadibna uu dhahayo xadhiggii baa qoorteeda ka soo baxay ma sixir baa meesha ku jira mise xeelad iyo farsamo iyo qish ayaa ku jira aynu fiirino marka saasuu sameeyay xadhiggii ka soo qaad maradan waxaan idinku soo qaatay xadhiggu ka sii yari laakiin tan si aad u fahamtaan ayaan idinku soo qaadayaa marka saasuu sameeyay gacantiisa midigta wuxuu ku qabtay dhinaca bidixeed tan bidixdana wuxuu ku qabanaya dhinacan midigeed dadkan saasuu dhahaya ma ujeedaa laabadkaasuu u sameynaya markuu saa u sameeyo wuu kala jiidaya dadkan soo ma ujeedid mase xoroolan ahay iminka mise xadhiggii baa qoorteeda kasoo dhex baxay mar kale aan ku celinayaa farsamada uu sameeyey waa tan saasuu sameeyey taas oo markaa waxa weeyaan sixir maaha waa xeelad iyo farsamo xadhigga ka sii yar aada isticmaalayso ama dadku ay isticmaalayaan xadhigga wuu yaryahay markaa ma dareemi karaysid markuu halkan ka laabayo waxaan waxay ku xidhan tahay surcatul yaddi gacanta oo degdeg waxaan lagaga qabto
takaadhka ayaan iminkan idin tusaya. حبد حبد قعنت هذا السهرة إلا أديك أجلس جوجي حبد كرت جوجي كان أكوري جوجي كان أدحي جوجي كان أوس جوجي أدلة واي كم خصبة يعني دوخة جواي حبد أوصل لقاه dabadeedna maxaa la odhanayaa جوجي ستوب أي لا haye حبد كاس بحسني تاجراش دك وينها أتسني تربك على قد احترا والباندينا عندنا وكسي جسنا وجيسا قبل أنتي ما بأركب ترك وحويا haye ترك مكي أولو قد احترا أو أديك عن ترى أتكون باندي سيت كتب أنو حاسمنا تربك وح أدرى سيرجن haye أسا استوصارب كلمة waa hagaagi soo daa jooji جوجنا خبصو كان ترتيب كذا أتكون تسي u fiirsa kaadhka marka la dhaho jooji meesha uu ka soo saarayo siduu uga duwan yahay iyo codkiisa sida uu sare ugu qaadayo. jooji جوجنا خبصو كان ترتيب كذا أتكون تسي أنا وصل بيا waad aragtaan bay ila tahay waa hagaag waan tusay iminka waxaan tusayaa kaadhka turubka uu isticmaalayo deetana kaadhkii isagoon arkin uu sheegayo kaadhka uu yahay isagoo dhahaya searching baan u dirayaa waan raadinayaa cid bay la shaqaynaysa erayada noocaas isticmaalaya kadibna kaadhkii aad la baxday aad dooratay ayuu markaa waxa weeyaan sheegaya ama soo saaraya kaadhka uu yahay. marka hore wuxuu ku tusayaa kaadhadhkii turubka oo caadiya waa kaadhadh rasmiya oo toosa weeyaan saad ujeedaan waa kaadhadhka caadiga ah wax ka qaldan ma jiraan waa kaadh caadiya kaadhadhka kale ayuu la mid yahay. wuxuu kugu dhahayaa waa iskugu kaa darayaa isku baandhaynayaa wuu isku darayaa adigoo arkaya ayuu isku darayaa waa caadi ayaad la isugu dari karaa wax mushkilada ma jiraan. haddaba tusaalahan idin siinayaa waxa uu wiilkaasi uu samaynayo. marka hore kaadhadhkaas halkaasaan dhigayaa ku daadinayaa markaan tuurayo mid ka mid a dooranaysa anugu mana arka kaadhki waad ujeedaa way sii jeedaan kaadhadhku way sii jeedaan ma arko waan tuurayaa halkaasaan ku daadinayaa mid ka mid a dooranaysa waxaad dhahaysaa stop joog baad leedahay markaad stop tidhaahdo kaadhka aad joojisay ee aad dooratay adaa eegaya anu waan kasii jeesanaya mana arkin laakiin waan garanayaa kaadhkaasi kaadhku uu noqon doono waan ogaan doonaa waaya marka farsamadii ama xeeladii hadhow baan idin sharxi doonaa laakiin marka hore aan bilaabo kaadh ka mid ah ayaad dooranaysa marka iminka waa halkaasaan ku daadinayaa way sii wada jeedaan mid stop dheh mid igu dheh stop kaasaad doorata hoob adigu eeg anigu maa fiirinin waan kasii jeesanaya anigu kaadhkaas maxaan samaynayaa ku dhex qalad kuwan ku dhex dar kaadhkii marka ku dhex daro waxaan oo dhan wuu isku dhex dari karaa wixii oo dhan buu dib isugu baandhaynayaa saan u samaynayaa wixii oo dhan buu isku darayaa kaadhkii markuu saa isugu daro kaadhkii ayuu halkan ka raadinayaa kaadhka uu yahay intuu saa dhaho wixii oo dhan saa u raadiyo ayuu kuu sheegayaa kaadhkaasi kaadhka uu yahay kan uu leeyahay waan kasoo dhex saarayaa waan raadinayaa already anigu iminka kaadhkii ay dooratay qofka iga duubaya kaadhkii uu doortay waa garanaya waan idin sheegi karaa lamber 2 buu ahaa halkan iminka markaan rabo inaan kasoo saarana way fududahay waa lambarkii waan ogahay waan garanaya wuxuu ahaa maxay lamber 2 buu ahaa kaadhkaas uu ahaa markaan rabo inaan searching u diro intaan been sheego aan dhaho searching baa u diraya dad bay la shaqaynayay soo saarayana taasina waa easy waa wax iska fudud oo la samayn karo way already kaadhkaan waan garanaya. haddaba muxuu isticmaalayaa iyo maxay isticmaalaan guud ahaan dadka waxaan isticmaala ama maaragtay adeegsida kaadhadhka sidan oo kale dadka ku qalda waxay isticmaalayaan marka ugu horeysa fahan kaadhka lamber 2ga halkaasuu igu jiraa ama kaadh baan ka sarraysiinaya ama labaan ka sarraysiinaya ama 3 kaadhka aan rabo inaad doorato 2 ama 3 baan ka sarraysiinaya halkan hoosuu igu jiraa tabtaa markaan dhaho kaadhkii waa iskugu kaalaabaya waan isku laabi doonaa saas iskugu daraya markaan isku daro soo ma ujeedid waan kula hadlayaa markaan kula hadlo waan ku jeedinayaa markaan kula hadlayo aan kugu leeyahay sharaxaadda ku akhrinayo aan ku leeyahay
kaadhadhkaasaan ku daadinaya mid kamida dooro farsamaan samaynaya gacantayda wax deg ah baan samaynaya oonad adigu ogeyn oo aanad fahansanayn markaan saas samaynayo kaadhadhkaa halka hoose saasaan hoos baan u riixaya u fiirso kuwa hoos baan u riixaya kuwan sarena halkan dusha sare ay soo marayaan markaan saa u daadiyo oo aan dhulka saa ugu dhufto halkan ku qabo xagga hoose aan saa ugu daadiyo kaadhku isma rogayo halkaasu yaalla markaad igu tidhaahdo kaadhkii ayaan doortay stop aad igu tidhaahdo xaggan hoosan kaadhka kasoo saaraya ma arkaan laakiin waan ogahay kaadhku yahay yaan saa kuu tusaya waa qaabka iyo farsamada la isticmaalo waa wax simple ah oo fudud weeye laakiin waxaa ku jirta khiyaano iyo been iyo kadib iyo xeelad iyo farsamooyin baa ku jira sixir ma gaadhsiisna oo sixiroole maaha wiilku laakiinse wuxuu isticmaalay been iyo xeelad iyo farsamo iyo khiyaano xukunka islaamku waxa ay ka qabtana waan sheegi doonaa insha allah erayada uu isticmaalayay marka aad u fiirsato waxaad ogaanaysaa wiilku inaanu fahansanayn macnaha saaxirka ama sixiroolaha waxa looga jeeda sixirooluhu aadamaha ilaahay abuurtay dadka ugu liita ayuu ka mid yahay nacuudu billah waa gaal sixirooluhu oo taas shaki kama taagna inuu gaal yahay laakiin wuxuu ku darsadaa sixirooluhu gaalnimada wuxuu ku darsadaa dembiye kale oo waaweyn oo khatara sida dilka oo uu dad badan intuu sixro ay u dhintaan kumanaan qof buu dilaa kumanaan reerood ayuu burburiyaa kumanaan qof oo caafimaad qaba ayuu cudur nacuudu billah u keenaa ninkaasi ama gabadha saaxiradda ah marka inkaar ilaahay ha ku rido meel kasta uu saaxir iyo sixiroole joogo dhibaatada ay aadamaha ku hayaan waxa weeyaan lama qiyaasi karo haddaba saaxirkii noocaas ahaa ee ilaahay qur-aanka ku sheegay oo uu yidhi walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa sixiroole meeluu taga ma liibaano in magaciisii in laga afariiro laga carara bay ahayd in magaciisii la dhaho magic baan samaynaya ama indhasarcaad ama saaxir baan ama sixiroolaan ahay oo faan ay noqoto iyo hibo ay noqoto waa arrin cajiiba weeyaan waana arrin ayaan darro ku ah bulshadeena soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan dadka soomaalida iyo guud ahaan dadka muslimka oo dhan wiilkaasi ma fahansana saaxirku waxa uu yahay saaxirku inuu gaal yahay xitaa ma dareensana ayaan filayaa subxaan allah dadka daawanaya iyaga laftigooduna ma oga mana dareensana marka insha allah muuqaalkan waxaan rabaa inaan kusoo bandhigo bal tricska uu isticmaalayay xeeladaha qaar ka mida inaan idiin soo bandhigo markaad ogsoonaataanna aada aragtaanna aada fahmi doontaan insha allah in waxaasi aanay ahayn sixir ee ay ahayd wax maaragtay xeelad iyo farsamo iyo khiyaani ay ku jirto iyo kelmado erayo been ah ay ku jiraan oo la adeegsanayo kadib muuqaalka marka daawataan ayaan waxaan ka warrami doonaa insha allah xukunka diinta islaamku waxa ay ka qabteen dhasarcaadka iyo sixirka lagu soo bandhigo masraxiyadaha iyo meelaha dadku ay ku kulmaan haddii aynu nimaadno xukunka diinta islaamku maxay ka qabtaa sixirka horta wiilkan isagu saaxir ma aha oo saaxir haddaan ku tilmaamno waa gaal weeyaan nacuudu billah marka ilaa iyo hadda anugu kumaan arkin sixirkii rasmiga ahaa ee marka gaalnimada keensanayay ee jinka iyo shaydaanka la adeegsanayay haddii uu adeegsado jinni iyo shaydaanna waa saaxir buu noqonayaa weliba kaafir ah oo diinta islaamka maaragtay ka ridoobaya nacuudu billah waayo qofku haddii uu saaxirba uu noqdo waa qasab inuu diinta islaamka uu ka baxo shaydaankana ku qasbaya nacuudu billah wiilkan isagu saaxir maaha isagu waxa weeye waa xeelada iyo farsamadaasi iyo waxyaalahaas u adeegsanaya indhasarcaadka loo yaqaan indhasarcaadka diinta islaamku waxay ka qabtaa waxa u taqaanaa khiyaano xukunka khiyaanada ayay hoosgelaysaa waxay kaloo hoosgelaysaa xukunka beenta iyo istabamarinta in dadka bulshada been loo sheego ama la khiyaameeyo ama wax la istabamariyo ayay hoosgelaysaa taas oo aan banaanayn waxa kaloo aanay ku banaanaanaynin marka la eegayo cilmiga fiqiga mawduuca loo yaqaano saddan lidariic in waxa weeyaan indhasarcaadkan wuxuu xaaraan ku noqonayaa in lagaga hortago waxyaalo waaweyn oo maaragtay dembiye waaweyn oo kabaa'ira waxaa ka mid a indhasarcaadkan marka hore xeelada ay farsamadaasu ku bilaabmaya laakiin aakhirka marka dambe tadawur iyo horumar buu sii samaynayaa deetana qofkii step tallaabo cusub ayuu hore u qaadayaa oo ah in uu sixiroole rasmiya uu noqdo way already magacii saaxirkii dadka way ugu yeedheen oo sixiroole way u sheegeen
dad badan oo kale la soo xidhiidhaya ila dadku isku iimaan maaha, isku caqli maaha, isku garaad maaha, isku maan maaha, way kala fikir duwan yihiin. dad badan baa la xidhiidhaya oo dhahaya hebel iyo heblaaye ii sixir oo ii madiide saaxir baa tahay. deetana arrintaasi waxay ku keenaysaa qofkii in uu halkaa kasii wado oo uu saaxir rasmiya uu noqdo. markaas iyadoo lagu hortegayo ficilka noocaasa oo tallaabada noocaasi xigta lagu hortegayo, diinta islaamku waxay taqaanaa maxay ka hortaga. waxaa xaaraanta in lagaga hortago oo marka horeba la manciyo oo la dhahdo wadadani waddo xaaraana bay ku geynaysaa, marka waa waddo xaaraana. marka indhasarcaadku labada arrimoodba kuma banaana. kow, waddo xaaraana uu hadhow ku geyn doono mustaqbalka, iyo khiyaanada iyo beenta iyo istabamarinta ku jirta. tala ayaan siinaynaa markaa dadka daawanaya barnaamijka, dadka hogaaminaya barnaamijka Got Talent, iyo wiilka laftigiisa, iyo kuwa laga yaabo inay ku dhiiradaan oo sixroolayaal rasmiya oo soo bixi doona. maxaa ka badan sixroolayaasha Soomaalida? inay sixroolayaasha Soomaalida ciidda ka badan yihiin waxaad ku garanaysaa cilaaj kasta inta qof ee taagan ee leh hebel iyo heblaaya iga dhex hadlaa ma waa la sixray. subxaanallah, la ilaaha illa allah. taa macnaheedu waxay tahay sixroolayaasha Soomaalida ciiddaasay ka badan yihiin. ilaahay subxaana wa tacaala sharkooda ha naga hayeen. talada koowaad waxaan usoo jeedinaynaa dadweynaha iyo dadka shacabka. waxaan leenahay walaalayaal, wax kasta horta maasha allah ha u dhihin oo ha ku taageerin qofka. anugu haddii maanta aan qaladan sameeye maad igu taageeri qaladki? xumaan miyaad igu taageeri lahayd? subxaan allah. haddaad walaalkay muslina aad tahay oo damiir aad leedahay, waad iga joojin lahayd dulmiga iyo gardarra haddii aan wado, ama aan been idiin sheegaya, ama xaaraan ama wax qaldan aan idinka warramay, waa iga qabanaysaan. taas qofkaasana walaaltinimo rasmiya ah. qofka xumaanta kaa qabtay kaa joojiya ku dhaha waar jooji, waxani waa wax xune. marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa oo aan u sheegaynaa, kuna baraarujinaynaa, kuna dhiirigelinaynaa in markay arkaan wax diintooda khilaafsan inay ka hadlaan, kuna dhiiradaan. qofkaana aanay ku ammaanin xumaantii, ay marka horeba u sheegaan dhan war waxani waa wax xune, faraha ka qaad. imisaa fara badana inta qof ee Soomaalidu ay ku dhiirigelisay fanka iyo suugaanta, oo intuu maalin cod intuu meel istaaga ay dhaheen codkaaga ayaa dahabiya, codkaagu waa la yaab baa tahay, gebigaagu subxaan allah lagumaba heli kare. deetana qofkii uu sidaa ku galay suugaantii iyo heesihii iyo macaasidii uu sidaa ku galay. imisaa gabadh xijaabka sidaa ku tuurtay oo ay ku dhaheen gabadh waxaa tahay can baa tahay oo tufaax baa tahay oo cambaruud meel ku yaalla tahay, cinab baa taho qamar baa tahay, oo markaa gabadhiiba ay yaabtay xijaabkii iyo maxajabadii ay ahayd ba ay ka tagtay. subxaan allah. marka xumaanta marka lagugu dhiirigeliyo, wax walbo kastoo lagugu dhiirigeliyo, marka dambe adiga laftigaagiiba maaragtay sii galaya. marka xumaanta dadka ha ku dhiirinina ee ka joojiya oo ka qabta. taas waa talada koowaad ee aan siinaya dadka walaaladeena ah ee daawanaya ama goobjooga u ah. talada labaad waxaan siinaynaa wiilka oo leenahay wiil dhalinyarada baa tahay, waxaan faraha ka qaad oo iska daa. ilaahay dartiina isaga daa subxaana wa tacaala. mustaqbalkaagana ka fakar. berri ka maalin waxaad noqonaysaa awoowe. ka war haddaad adoo awoowe ah carruurtii aad awoowaha u tahay ay arkaan awowgooda meejiga subxaan allah, ama sixroola ah, ama dadku ay daawanayaan. subxaan allah. marka wax khayr kuu ah adduunya aakhiro ku anfacaya, ku mashquul. qolyaha barnaamijka hogaaminaya ee Got Talent hogaaminaya yaa waxaan leenahay macsi uun ha nooga dhigina hibo. hees la qaadayo, heestu waa macsi weeyaan, indhasarcaadku waa macsi weeyaan. hibadu way ballaaran tahay, dadkan waa run, hibooyin fara badan bay leeyihiin. bal hibooyinka inta xalaasha ah xooga saara. wixii xalaal ah ee ajar lagaga qoraayo, ama khayr adduunyo ama khayr aakhiro ay ku jirto, kuwa in xooga la saaro oo la dhiirigeliyo oo markaa lasoo dhaweeyo weeyaan. wixii macsiyo dembi ah ee malagii dembiga qorayay uu daalayba siduu u qorayay subxaan allah, malaga khayrka qorayaana isagana uu howlgab ama shaqadiiba uu ka fadhiistay subxaan allah. leanna waxaanu ku hadlaynay ficilkeennii oo dhan baa wuxuu noqday sayi-aad iyo xumaan. nas'al allah asalaama. ilaahay subxaana wa tacaala hana soo hanuuniyo. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.